مرحلة الدوبامين يعني الدوبامين وحالها dadka caafimaadka barto way maqleen dhici kartay waa dhacaan yar maskaxda laga soo daayo jirka meel kale waa laga soo daayo laakiin intiisa badan maskaxdaas laga soo deeyaa qofka markuu wax jeclaado ficil sida dhahan al-hubbu min awwal nadra aragtida ugu horeysa ayaa qofku aragtida ka cin karta qof codkiisa ama qashaa ka cin karta qof sawirkiisa aragtaa ka cin karta qofkii markii maskaxdii qofkan dadka kale waa kaaga socnaana maskaxda markay qofkan dadka kale ka soocato jaa waxa la dirayaa fariimaha waxa loo dirayaa meelihii dopamine laga soo daaynaay dopamine markii la soo daayo qofku waxay dareensiinaysaa marka xoogaa yar farxad iyo wuxuu rabay inuu helay waxa la mukaafa'a ama reward wuxuu rabay inuu helay ayuu qofku dareemaya dopamine tas way dib badan tahay waxyaabaha ma aragtay dadka mudminiinta ama addicted ka dadka ma aragtay muqaddaraadka qabatimo kale ama balwada qabatimo kale markay waayaan see dareemayaan way raadinayaan craving waxa la ku dhacayo jicir iyo dhul xeeraban say u helaan laana maskaxdu waxay soo deynaysaa dopamine badan waxay rabtaa marka dopamine taas inay hesho waxay u baahneed saasoo kale qofkii wax jeclaaday markii maskaxda la stimulate maskaxda la kiciyo dopamine la soo daayo dopamine waxay rabtaa inay hesho waxay u baahneed tusaale ahaan qofkii inay maqasho ama ay aragto ama ay la hadasho ay rabtaa hadee weyso wax badan la soo sii deena qofkii tawatur ku dhacay stress ku dhacay waa walwala qofkii waa fikiraa maskaxdiisu dhan si kale noqonay hadee heshone sidii rabto waa qofka waa farxa markaas maanta dhow waxa leedahay aragtidaada farxada ku dareema farxada dopamine way adimaha dopamine la soo daa waxay sameynaysaa farxada ku dareensiinaysa la hadalkaada nafisu iyahay adhe sababta waxa waaye hadii qofka aad la hadlin awal ayada ku stress gareenays way dib badan tahay marka dopamine waa nooc min al-mukhadira waxyaabaha qofka ma aragtay dooriya ayay kamid tahay dopamine taas marka waxay sameysaa waxyaabo shaqooyin kala badan ay sameysaa tusaale ahaan way soconay iyada waa neurotransmitter hormone way tahay dheecaan way tahay waxay tagaysaa sleep centerski meelihii maskaxda ee hagaysa hurdada markaas ay shaqadoodii hoos u dhigaysaa qofku waa soo jeeda ma arkino inay dhafrayaan dadka qaar habeenkii qofkii soo jeed ma dareemayo hurdadii hadii ama salaad uu macnaha wax aqris uu fariisto maanta hurdo iska celina laakiin haduu qofka kale la hadlaayo ama uu asagii ku mashquulsan yahay ma hurdaayo sababtu waxa waaye dopamine shaqeynayso sidoo kale waxay sameysaa appetite centerki ama meeshii cuntada iyo baahida iyo laga maamulay ay idan waxay ku sameynaysaa inhibition hoos u dhigaysaa markaas qofkii cunto ma u baahanayo baahiya qabanayso saadartay ninki gabiya muxuu yiri sideen ku iloobaa anigoo salaadaha u sahwiyo daraada haddana wuxuu yiri sideen ku iloobaa anoo soorta uga soomay gacalo cuntadii waa ka soomay asaga ma ka soominna dopamine asoominays marka wuxuu marayaa marxalada dopamine sidoo kale hurdada wuxuu yiri sideen ku iloobaa anoo seexan waayo saamaleelki qaybay hurdo ma leh adaa ka fikiraya macna wayna sheegan waxa soo dhan baaritaano lagu sameeyay oo ma aragto waxay ku fiiriyeen wax la dhaho functional MRI islaana baaraysa 30 sano waxay ahayd love expert 10 years Helen Fisher dhaha kitaab ay ku qortay Why We Love marka 30 sano dad inta soo waday wax ku xirtaa kana ku xirtaa way baartaa waxay weydiisaa su'aal ay weydiisaa wax way ka qortay sidoo kale dopamine taas waxay sameeyeen waxay ma ka qayb qaadanayaan maskaxdu inay soo saarto dheecaan kale oo la yiraahdo norepinephrine ama adrenaline ma aragtay dadka caafimaadka dhigta aad bay u fahmayaan adrenaline shaqadiisa waxa waaye wadnuhu aad iyo aad u garaaca hadii wax badan la soo daayo dhididka tirada badan jarayska ma aragtay wadna garaaca qofku markuu qofka u jeclaaday arko dhidid ka soo daadanaa ama wadnaha garaaca ama ma aragtay waxa soo dhan waxa keenaysa noradrenaline sidoo kale ma aragtay noradrenaline kaas marka dadku waxay u maleeyaan qofkii wadnaha laga jeclaanayo markaas ay ku leeyahay uhibbuka min a'maaqi qalbi waxa la qofka
maskaxdeeda ka jeclaa qof aragto ku dhahay maskaxdeeda ka jeclaa ficil waxa shaqeynayna oo dopamine soo deynaa oo dareenkaas qofku inuu yeesho ka qayb qaadanayna waa maskaxda waay sidoo kale dopamine waxay samaysaa dheecaan kale oo serotonin la dhaho serotonin oo maskaxda ay soo deysay hoos u dhigay serotonin asaga dopamine wuxuu uga duway waa hormoon sacaada farxadda qofkii inuu fikiro ayuu ka qayb qaataa dadka ma aragtay serotoninka ay ku yar yihiin cudur waxa ku dhacaya dhaho obsession waxa waswaas maanta dhan inuu wees qaato ma u malay maanta dhan wees qaadana maanta dhan yani inuu wax cunay ma u malay cuntadii maanta dhan cunaa waswaasa ku dhacay dadka qaarna ma iska celin karaan afcariga waxa lagu dhahaa marad alwaswaas alqahri obsessive compulsive disorder compulsive qofkii isma oga laana serotoninka ku yar maxay samaysaa dopamine haday badato marka qofkii tusaale ahaan qofkii uu ku fikiray ama raadiyay dopamine baa ku badatay haday ku badato serotonin hoos ba u dhacaysa gabadhii marka maanta dhan waswaas ama wiilkii maanta dhan waswaasahay laana dopamine waa la soo deynooyaa riwaarka u baahneedna ma helos saalaan gabadhan wiilka weyse ama ka tagiyay ama gabar kale ka raacay dopamine ma xasma maqlayso waxay rabtaa waxay u baratay riwaarkii ay rabtaa qofkii marka waa fikira waa waswaasa waxa weeyaan fikirkiisa wixiisa dhan waa yaraanayaan hadda hooyadu waxay leedahay gabarteedii jinniya iga haay gabartii jinniya ma haya maskaxda laga heestaa ama wiilkii maalmaha waa iga xanuunsanyahay marka waxyaabahaas oo dhan waxaa la marxaladaas waxaa la marxalatu dopamine marxalad oo ma aragtay run ahna ma aha xaqiiqatan waa qasiiratul mada short term way waana marxalada koowaad waana marxalad alxub romansi mid kala dhaho waay oo uu ku bilaabanayo waay sidoo kale dopamine waxyaabaha caanka ku tahay waxa kamid ah dad badan khalad badan ka sameeya waxay si indirect u kicisaa maskaxda qaybta soo deysa ma aragtay hormoon iska qaabilsan jinsiga saadartay qofkii markuu wuxuu rabaa al-ittisaal al-jinsi qofkii kale inuu xiriir jinsiyadeed la sameeyo indirectly dopamine taas kicinayso dad badan marka inta hawadoodii raacaan ama ma aragtay maskaxdoodii celin waayaan khaladaad badan meesha uga dhacay oo waxyaabo badan oo hadhow aysan filanaynin ay gali doonaan marka ayada naftirkeeda waxa waa in oo ma aragtay aad iyo aad looga tigtoonaado marxaladaas waxa la marxalatul injidaab waana marxalada qisooyinka jaceylka filmaanta gabayada jaceylka naloo sheego marxalada la tiriyay waa marxalada qays iyo leyl ay soo maraayeen markay kala tagayeen waa marxalada cilmi boodari iyo hodan Romeo iyo Juliet cid kasta waa leedahay moogta laba qofood marka Romeo iyo Juliet iyo Antara iyo Abla iyo yaa qays iyo leyl iyo kulli marxaladaas ay maraayeen marxalad ma aragtay jaceyl waa ma loo dhintay iyo jaceyl dhiig ma loo shubay iyo jaceyl saa ma loo yeelay iyo marxaladaas way marxalada dopamine ilaa intee socotaa waxay dhahan 8 bilood 12 bilood qaar waxay dhahan 18 bilood halaas ma dhaafay kadib marxalad kala bilaabanayso marxalatul iktishaaf al dhaha awal marxalatu dopamine waxay ahayd qofka waa ku dhameystirnaa meel ay la-aad male xataa hadduu inta ka goosan yahay waxaa leedahay intaa ka fiirinina inta soo maray inta ka fiirin inta way ka toosanta laana qofkii ceebihiisii arki maysid sababtan waxaa waaye dopamine taas waxay hoos u dhigaysaa sidoo kale maskaxda qaybta critical thinking-ka lahayd ama tafkiirka toosan lahayd ee hoos u dhigay markaasaa qofkii dhan kuu dhammaystiran yahay waa mutakaamilo ku yahay wax ma lagaaga sheegi karo marxaladaas waa iska dhamaanay markay dhamaato waxaa la tagaa marxalad al-iktishaaf ama istikshaaf qofkii waxaad hore ku arkinaa ku arkay wajigiisa nuuc kale kula noqon dhaqamo kale ku arkay si kale u yaalaa waxa la saa ku maleynaa ma batihide dhaqamada ma walaheene awal basi waxa ku sawirnaa khiyaali ah ma heesaa ma ahayn qofkan sidan waa saadarteed dadka qaar markay isguursadaan marxaladii dopamine way dhamaatay ma ogtay marxaladu iktishaaf la yimid markaas markaas soo jeclaanayne iyo hadda isku mid ma tihid ficlan isku mid ma noqonay waa caadi waa normal ma aragtay qofka isku mid ma noqonay marxaladaas marka waa marxalad aad iyo aad u dhib badan sababta ma taqaanaa laba mid ay keenaysaa qofka inuu ugu dul qaato oo qofkan uu ku qaato way dhamaanay marxaladaas
ama qofka inuu la qabsan waayo dhaqamada uu soo hore u arag dadka ma aragtay hebel waxay dhahaan ma ogtahay maalin baa dadka ma aragtay ama waxa ka samiri waa ama suuraha iyo waxaas jilaa waxa la adiga kaalay filmaanta ma badsat qofka markii ruxub romaansi badsaday oo isii raaciyay oo qofkan boqol u arkay hadhow ma la qabsan karo saa darteed waa marxaladda ma aragtay kala tagga iyo isdagaalida ugu badan ee imaata way marxaladda waa laga gudbaa ayadana waxaa imaanaysa marxalad la yiraahdo marxalatu takayuf ama marxalatu taayush marxaladeedahan waa qofkii inuu qofkii kale la qabsado oo uu la noolaado sidaada inaa ku qaato qofkii sidiisi ilaa mucaanka ka jeexnaado ama maskaxda la aado